soo dhawaada daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga ciyaaraha oo aan kugu hayo warar dhowr ah. Wararkan idin hayna waxaa ugu waaweyn Cristiano Ronaldo oo markii ugu horeysay si qiiro leh uga hadlay xifaaltanka u dhexeeya isaga iyo Messi. Sidoo kalena Ronaldo oo ka hadlay cidda u qalanta abaalmarinta Ballon d'Or ee sanadkan. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad maqli doontaan barnaamijka inta uu socdo. Balse marka hore, haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay page-keena, waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo birto. Haddii aad hore nala joogtana muuqaalka like siina share garee aad baad u mahadsantahay. soo dhawaada daawadayaal mar kale iyo barnaamijka bandhiga ciyaaraha. Cristiano Ronaldo oo markii ugu horeysay si qiiro leh uga hadlay xifaaltanka u dhexeeya isaga iyo Messi. Ronaldo ayaa si diiran u hadlay isaga oo muujiyay ixtiraamka uu u hayo Lionel Messi. Inkasta oo ay sanado badan ka soo dhaxaysay tartan adag oo kubadda cagta ah. Waan jeclahay Argentina, xaaskiiguna waa u dhalatay. Inkasta oo aan 40 jir ahay, weligay ma aanan booqan Argentina, balse waxaan rajaynayaa inaan maalin tago. Dabcan Messi waan jeclahay ayuu yiri Ronaldo. Wuxuu intaa ku daray, sanado badan waxaan ahayn cadow kubadda cagta ah, balse aad baan u ixtiraamaa. Si wanaagsan buu ila dhaqmay. Ixtiraam ayuu ii muujiyay. Mararka qaar aniga u turjumi jiray xafladaha abaalmarinta. Marka uu kari waayo inuu ku hadlo Ingiriisiga, Ronaldo wuxuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa. Mustaqbalku waa mid aan la saadaalin karin. Hadalka Ronaldo ayaa muujinaya in xiriirka uu la leeyahay Messi uu ka gudbay heer tartan oo kaliya, uuna u gudbay ixtiraam iyo aqoonsi dhab ah oo labada xidig u dhexeeya. Dhinaca kalena, Ronaldo oo magacaabay cidda u qalanta abaalmarinta Ballon d'Or ee sanadkan. Cristiano Ronaldo ayaa si cad u sheegay inuu shaki weyn ka qabo qiimaha abaalmarinta Ballon d'Or, isagoo sidoo kalena ka digay in cadaadis lagu saaro ciyaaryahanada da'da yar sida Lamine Yamal. Ciyaaryahanka reer Portugal ayaa yiri, aniga ahaan ciyaaryahanka ku guuleysta Ballon d'Or waa inuu noqdaa mid ku guuleysta Champions League. Waxay lumiyeen qiimaha abaalmarintan. Mar la weydiiyay aragtidiisa ku saabsan abaalmarinta, wuxuu intaas ku daray, Ballon d'Or ma aaminsani abaalmarinada shakhsiga hadda, sababtoo ah waan ogahay shaqada dhab ahaantii jirta. Isagoo ka hadlayay Lamine Yamal, Ronaldo wuxuu yiri, Lamine Yamal wuxuu sameynayaa wax fiican. Wuxuu si fiican ugu faa'iideysanayaa hibadiisa, laakiin waa in la siiyo fursad uu ku koro. Wuxuu sii raaciyay, yaan la saarin cadaadis badan. Ha la daayo oo ha u koro si dabiici ah. Hibadiisa waxba kama maqna. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii bandhiga ciyaaraha oo aan soo diyaariyay caawa. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena aad share gareyso. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Intaan barnaamij midkan lamid ah ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Ciid wanaagsan.